barasabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa maanta waxa uu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska 18 May ee gobolka Gabiley. Guddidan uu maanta magacaabay barasabku ayaa ka kooban 14 xubnood. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waa taariikhdu tahay 7 bishii shanaad 2019 waxaan halkan ka magacaabayaa guddigii qabanqaabada xuska 18 May 2019 oo ka kooban sidan hoos ku qoran gudoomiyaha gobolka Gabiley, labo maayarka degmada Gabiley, saddex gudoomiye ku-xigeenka gobolka, afar isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka, isuduwaha shaqada iyo arrimaha bulshada, isuduwaha wasaaradda deegaanka, isuduwaha wasaaradda cadaaladda, xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Faarax, xildhibaan Nimco Axmed Cabdi, xildhibaan Axmed Siciid Kibaar, xildhibaan Axmed Cali Maxamed, xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi iyo gudoomiyaha ururka naaw ee gobolka Gabiley. runtii waxaan ka rajaynayaa in ay iyaguna ka soo bixi doonaan waajibaadkooda. barasabku isagoo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu shacbiga ku nool magaalada Gabiley iyo degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley laamaha dawladda, ciidamada gobolka, shirkadaha gaarka loo leeyahay, ganacsatada, ururada bulshada uu ugu baaqay inay qayb libaax la ka qaataan maalintan qaran. waxaana uu yiri dadweynaha gobolka ku nool waxaan ku boorinayaa in dhammaantood iyaguna ay si mug iyo miisaan leh ay maalinta 18 May ayaguna u soo banaan baxaan. runtii waxaan kaloo iyagana halkan fariin uga dirayaa dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolku in ay iyaguna xuska 18 May ay si mug iyo miisaan leh ay uga qayb qaataan runtii loona diyaar garoobo xuska 18 May. waxaan kaloo halkan iyaguna ka farayaa laamaha kala duwan ee dawladda ka howlgala gobolka in iyaguna sidaas si leeg maalinta 18 May diyaar garowgooda ay iyaguna uga qayb qaataan. waxaan kaloo iyagana halkan ka rajaynayaa in iyaguna ciidamada qalabka sida dhammaan ka howlgala gobolka in iyaguna si mug iyo miisaan leh iyaguna uga howlgalaan. shaqaalaha dawladda oo dhammaan aan farayo in ay iyaguna sidaas si leeg ay hawshaas 18 May ay qayb libaax lagu qaataan. waxaan kaloo farayaa ururada bulshada ee gobolka, waxaan kaloo farayaa shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Gabiley sidii looga bartay inay si mug iyo miisaan leh iyo qiimo leh ay runtii maalinta 18 May ay u soo baxaan wacdarihii la arki jirayna ay u dhigaan iyadoo lagu jiro bishii Ramadaan. haddana waxaynu sameynaynaa qarannimadeena iyo muwaadinimadeena inaynu maalinta si mug iyo miisaan leh u soo baxna ayaynu doonaynaa. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin, wararka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.